dowladda Kenya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya ayaa go'aan ka soo saartay xeryaha qaxoontiga ku yaala dalka Kenya. xeryaha qaxoontiga Dadaab iyo Kakuma ee ku yaala gudaha dalka Kenya halkaas ay ku dhaqan yihiin qaxoonti badan oo iskaga yimid dhowr dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay. qaxoontiga Soomaalida ku dhaqan xeryaha qaxoontiga ayaa muddo gaaraysa 30 sano ku dhaqan halkaasi. markii Soomaaliya ay ka dhacday dawlad la'aanta iyo burburka dawladda iyo waliba dagaalada sukeeye ayaa dad badan waxay miciid bideen dalka dariska la Soomaaliya Kenya iyadoo hay'adaha qaxoontiga ee qaramada midoobay qaabilsan UNHCR ay halkaas dibadejin ugu sameysay. sidoo kale waliba barakacayaal iyaguna ka soo barakacay colaadaha geeska Afrika ka jira sida dalalka Itoobiya iyo waliba dalal kale dhowr ah oo ku yaala geeska Afrika ayaa halkaas iyaguna ay hay'adaasi uga dhigtay deegaan. dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxoontiga ee waqtigan dawladda Kenya ay qabatay muddo 14 casho. dawladda Kenya ayaa muddo 14 casho u qabatay inay dadkaasi qaxoontiga ay kaga guuraan isla markaana xeryahaasi lagu xulayo. war qoraal wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya u dirtay hay'adda qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda u qaabilsan arrimaha qaxoontiga UNHCR ay ku sheegtay inay 14 casho wixii ka dambeeyay Kenya iyadoo go'aan gaarayso. waxayna u sababaysaa arrimaha amniga iyadoo la sheegtay dawladda Kenya in weeraradii ugu dambeeyay ka dhacay dalka Kenya iyo waliba gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ee Soomaalidu degto ay laga soo abilay gudaha xeryaha qaxoontiga. dawladda Kenya ayaa sheegtay falalka ammaan darre ka dhaca gudaha dalkeeda iyo waliba sidoo kale kooxaha argagixisada falalka ay fuliyaan ay halkaasi ka soo abilaan. dawladda Kenya ayaa waxay ugu sheegtay hay'adda UNHCR inay 14 casho wixii ka dambeeyay ay Kenya iyadu go'aan gaari doonto. sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda UNHCR ayaa sheegay in ay u saareen arrintaasi guddi isla markaana arrintaasi laga fiirsanayo lagana barandegayo. hase haatee dawladda Kenya ayaa dhowr jeer oo Soomaaliya khilaaf xooggan kala dhaxeeyo ayaa dhowr jeer sheegtay inay xidhayso xeryaha qaxoontiga oo ay ku jiraan tiro badan oo dad Soomaaliyeed ah kuwaas halkaasi ka helay waxbarasho, dibadejin, caafimaad iyo waliba sidoo kale deganaansho. qaarkoodna ay ka helaan ay halkaas ka ganacsadaan isla markaana ay ka abuureen fursado ganacsi oo kala duwan. hase haatee khilaafka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitamayay isla markaana salka ku haya arrinta badda ee labada dal u dhaxaysa ayaa waxay Kenya dhowr jeer ku hanjabtay inay xeryahaasi albaabada iskugu dhufan doonto isla markaana Soomaaliya ay garan weyday abaalkii Kenya u gashay. tani intii Soomaaliya burbursaneed ee 30 sano ahayd ayaa Kenya gacanta waxay ku haysay iyadoo hay'adda qaxoontiga UNHCR ka caawinayso shacab badan oo Soomaaliyeed oo halkaasi nolol ka helay. hase haatee Kenya ayaa muddo inay ka dhabaynayso hanjabaadaheedii ay ku soo celcelin jirtay xilli maxkamadda ICJ ay dacwada labada dal u dhaxaysay arrinta badda ay furtay isla markaana Kenya ay ka baaqatay iyadoo in Soomaaliya jeedisay maxkamadda horteeda qarnaqsigeeda ku saabsan dhanka dacwada badda. hase haatee lama oga 14 casho hay'adda UNHCR iyo Kenya xalka ay keeni doonaan iyo inay Kenya ka laaban doonto go'aankeedan. hase haatee Kenya ayaa muddo inay gaadhay go'aan kama dambaysa.